mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ayaa ka qayb galay xidhitaanka tababar socday muddo bila kaasoo lagu tababarayay ardayda dhigata jaamacadda burco gaar ahaana kuuliyadda ganacsiga qaabka loo abuuro ganacsiga tababarkan ay fulinaysay hay-adda shaqadoon ayaa waxaa tababarkaasi ka faa'iidaystay arday tiro badan ismaaciil cumar oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda shaqadoon ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda uu tababarkani u leeyahay ardayda dhigata kuuliyadda ganacsiga ee jaamacadda burco. مشروع أما برنامج سمر سكول برنامج أما سمر سكول انتربرينورشيب كورس أنا أترجمه وأنكفر إني ستح جامعات وسمعنا كويلا وأنت جامعة بدر جامعة الجيسة جامعة برا واحد من الشباب يعطي نور حيسا بقولي ستين تنطي لحد برا يلحد الجيسة يلحد بدر لما بقولي ستين كارطي واحد نسي هالبرنامج أو أسبوع مذا oo markiiba uu qaadanayo 10 maalmood ama 5 maalmood oo dhaxaysa dhammaan programmadu waxay awood saarayeen oo ay ardayda ku dhiirigelinayeen ardaygan isagoo oo shahaado sita jaamacadda ka soo baxay bal in fikirka la yar bedelo waxaan jecelahay programkan hadduu guuleysto inaan sii wado qof walbana uu niyadda ku hayo berika maalin soo businesskiisa ama meheradiisa oo abuurto oo dhisan karo maamulan karo oo ka dhigi karo meherad isku istaagtay iskeed. tababarku wuxuu ku saabsanaa sida loo helo fikrad cusub oo idea oo shaqaynaysa waayo maskaxda bini'aadamku way buuxdaa ardayda jaamacad dhiganaysaana way ka sii duwantay si loo helo ardaygu uu soo saaro oo maskaxdiisa uga soo saaro fikir ganacsi oo shaqayn kara oo cusub waliba haddaan anagu wasaaraddanahay aan waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda qaybta waxbarashada sare oo qaabilsan heer jaamacadii wixii la halmaala sida mashruucan oo kale wasaaraddu boolicy bay ka leedahay hawshan oo kale sababtu waa maxay waxaa la doonayaa in cilmigeenu xagga practicalka uu aada ugu bato oo biskaynu dhigano ama howlaha kale majority-ga jaamacadda aynu dhigano xagga tiigeega u baday sidaa daraaddeed waxaynu baryahan dambe xooga saaraynaa waxbarashada xagga practicalka insha Allah wuxuu ka saaray hawshan tababarka ah hay-adda shaqadoon iyo wasaaradda qaybta tacliinta sare iyo jaamacadda burco wuxuu dhan waxay isu kaashanayaan sidii ay loo dhiirigelin lahaa ardaydan jaamacadda dhigata qaybaheeda kala duwan gaar ahaan kuwa businesska. gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qayb qaadatay tababarkaasi kor loogu qaadayay qaabka loo abuuro ganacsiga oo maxamed ibraahim british tv-ga qaranka somalilan burco.